Kim Jong-un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wuxuu ku amray ciidamada dalkiisa inay kordhiyaan awoodda difaaca ee dalkaas korna loo qaado awoodda weerarada. Waa xilli sawirro laga qaaday hawada sare ay muujinayaan diyaargarow xoogan oo Kuuriyada Waqooyi ay ugu jirto tijaabo dhanka nukliyeerka ah sanad kadib markii ay shaacisay inay kordhinayso awooddeeda hubka waxkumaada ee nukliyeerka. Kim wuxuu u sheegay ciidamadiisa inay xag walba isadkeeyaan si ay u jabiyaan wax uu ku sheegay cadowga Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi waxay u dabaaldegaysay toddobaadkan 9 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada dalkaas oo ka mid ah kuwa ugu tababarka wanaagsan dunida, inkastoo ay sanada wajahayeen cunaqabataynta saaran dalkaas ee dhanka hubka. waxaa la filayaa in Kuuriyada Waqooyi ay 5 sano kadib markii ugu horeysay samayso tijaabo dhanka hubka nukliyeerka ah. Waxa ugu dambeysay sanadkii 2017. Tijaabadan ayaa daba socotay bishii hore oo ay gantay gantaalkii ugu weynaa abid ee ay tijaabiso. Wuxuu ahaa gantaal xambaari karayay madaxyo badan oo nukliyeer ah isla markaana duqeyn karayay meel walba oo ka mid ah carrada Mareykanka. Xiisadda gacanka Kuuriya ayaa ah mid kacsan mar walba, xataa haddii dhinacyadu ay wada hadal furaan. Khadar Haybasaab TV. qoonmaal islaam io fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam io fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 15 eber